Kashdul. salaamun calaykum maalin wanaagsan ciwaanka iyaga maanta waa boogta bilicda Soomaalida ku dhawaad 1000 sano ayaa soo fashilmaysay isku dayo fara badan oo la isku dayay in lagu qaato dhulka Soomaalidana looga buriyo taa waxa kamid ah dagaalkii u dhaxeyn jiray Soomaalida iyo Itoobiya oo soo socday 100 sano barwaaqada iyo waxbarashada bilaashka iyo warshadaha ay Ilaahay ugu nimceeyay Soomaalida xilligii barisamaadka ayaa mid halgan dheer iyo iska caabin fara badan ay Soomaalidii awoowayaashoodii hore ay sameeyeen awoowayaashanaga ayaa waxay ka eegayeen arrintaani laba weynayso oo kala ah qabka wadanka iyo dhiig walaal ogolaanshadiina kadib daan xoog yara saarno dhanka nolosha iyo horumarka deegaan waxbarashada bilaashka ah aan dib ugu dhigno ka hadalka dhanka cadaadiska fikir waxaan garan lahayn oo fahmi lahayn inaan fadhinay doontii dawladaha waaweyn waa haddii aan ku sii socon lahayn habkaasi ilaa maanta amni iyo nabadgelyo ayaa wadanka ka jiray lamana dareemaynin cid ka cawanayso amni daro marka laga reebo markay cambaareeyaan culimada fikirka dawladda ama shaqaalaha ka gaabiyay waajibaadkii loo igmaday qaar ka mid ah madaxda caalamka ayaa u soo safriyay gobolada qaar ka mid ah ee Soomaaliya dalxiis iyo fasax awgeed si ay ugu raaxaystaan jawi isku dheelitiran ee Soomaaliya haysato kheyraadka dhulka iyo amniga wadanka barwaaqada ay Soomaalida ku haysteen dhulka korkiisa barigaas iyo mid ku duugan dhulka hoostiisa ayaa lagu ilaaliyay aqliga culimada awoodda halgan iyo kartida dawladda nicmooyinka Ilaahay Soomaaliya ayaa aad u far badan waxaana ka mid ah inay yihiin dad diinta jecel oo diinta u halgama ilaa midkood uu dhaho Soomaalida waa ilaaliyaasha diinta waxaa sidoo kale ka mid ah nicmada Ilaahay Soomaalida siiyay inay si degdeg ah u horumaraan meel kasta ay dunida ka tagaan waxaa ka soo wareegay 10 sano qura marka ay heleen Soomaalida madax banaanida ay ka heleen wadamada gumeysiga galbeed muddadaas yar kadib ayaa Soomaalida waxay noqday dawladaha ugu waaweyn ee Afrika isla markaana ay ahayd dawladii aasaasay midowga Afrika Soomaalida waxay taakulayeen u gargaareen oo kala qayb qaateen dawladaha Afrika qaar si ay u helaan xornimo iyo madax banaani balse qof kasta wuxuu leeyahay meel uu ka liito hadduusan jirin qof ogaa ama og meesha aad ka liidato ma jiri doono qof ka mid ah bini'aadanka oo ka guulgaaro Soomaalida meeshay ka liitaan waa mid la yaqaan oo muuqato waa dad jecelaysi iyo qabyaaladaysi qabka iyo qofnimada Soomaalida oo soo socday ku dhawaad 1000 sano ayaa laga beegsaday xagga ay ka liidato oo ah qabyaalada berigii barwaaqada fogeed waa maalmihii halgamayaasha iyo xilligii barwaaqada dhaweed ee waa maalmihii dawladda dhexe labadaas xilli waxay Soomaalida ku mashquulsanaayeen cilmi aqoon iyo quud xalaal meesha ay ka liitaan waxa sidaas ku qariyay cilmiga aqoonta iyo howlaha mana joogin wadanka xilligaas qof ku fikira sidoo uu ka in lahaa fitnada beriyadaas hore waxay Soomaalida qof walba uu la jeclaa qof kale inuu wanaag helo waxana lagu wada noolaa amni iyo amaan iyo barwaaqo ruuxda Soomaalinimadu waxay u dhaqmaysay sidii markuu jir feeris soo galo oo isku dayay inay iska caabiyaan jirka intiisa kale si la iskaga saaraan Soomaalida berigii hore ilaa hadda halka mid ay ka midaysan yihiin waxay tahay markuu isku dayo cadow inuu taabto wax ku saabsan wadanka sida ka dhacdayba markay isku dayday Kenya inay qaadato badda balse markay soo muuqatay meesha ay ka liitaan Soomaalida waa qabyaaladii uuna socday dagaaladii sokeeye ku dhawaad 20 sano kadibna si tartiib oo aayara uu joogsaday ayaa si taagtaagsi waxa u bilowday horumar dhismo iyo deegaan kaliya ku dhawaad 10 sano gudahooda ayaa waxa isku bedelay qaabkii caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho wadanka ayaa ku soo kordhay qalab iyo hab dhaqan dhaqaale cusub oo aad ka dareemayso reereen yar haba jirtay mararka qaar dhibaatooyin iyo qaraxyo dhaco taas waxay tilmaamaysaa maskax furnaanshada Soomaalida isla markii ay horumarka gaarayaan meel kasta ay dunida ka joogaanba balse in kastoo horumarkaas taagtaagsiga uu jiro ayaa wali waxaan la awoodin in la daboolo ama la duugo oo la aaso meesha ay Soomaalida ka liidato oo ah qabyaalada wayna adagta in la daboolo qabyaalada maadaama ay jiraan dhagar wadayaal iyo calooshood u shaqaystayaal kuwaasoo had iyo jeer ku baraarugsan oo doonaya inaysan soconin horumarkaani taagtaagsiga ah iyadoo taala jirto ajaanib iyo shisheeye ka shaqaynaya sidii horjoogsan lahaayeen horumarka wadanka iyagoo ka faa'iideysanaya meesha ay Soomaalida ka liidato ee waa qabyaalada waxaad ogtihiin oo garanaysan magaalada weyn ee xalane oo lagu yaqaan inay ahayd meeshii ardaydu wax ku baran jireen ama ciidamada tababar lagu siinayay weyneed xilligii Soomaaliya ee nabadii barwaaqo haysatay ayaa maanta waxa maareynaya oo ka talinaya dawladaha reer galbeed ah iyagoo isla markaana falanqeynaya siyaasadda wadanka Soomaalida xilligan joogta ay wax u kala qaybsan yihiin hadba sidii u kala jecel yihiin sanamkooda waa qabyaaladee waxaa soo muuqday maamulo kala duwan oo qabyaaladaysan ay adag tahay Soomaaliya inay ku laabato xilligeeda nadiifsanaa iyo qabkeeda weynaa ilaa mid walba wuxuu ka shakisan yahay runnimada iyo daacadda iyo wanaagga niyadda kan kale markaas ayuu ku dhigayaa xaafadiisa wuxuuna u arkayaa maamulkiisa inuu yahay maamul muqaddas ah dhammaan waa la wada ogsoon yahay waxa quudiyo fowdada iyo qabyaaladda Soomaalida ay ka harsan weysay muddadan fara badan inay ka timaado 5 meel qura 1 odayaal dhaqameed 2 siyaasiyiin calooshood u shaqaystayaal ah 3 ganacsato danaystayaal ah 4 shisheeye boob raba 6 koox fikradeed hubaysan dhammaantood waxay ku soo barteen bilaash maantana waxay doonayaan wadan xaraash maalin wanaagsan salaamun calaykum